hooyo 25 jir ah oo dhalatay dalkaasi Maali ayaa hal mar umushay tiro 9 caruur ah taa oo noqonaysa tiradii ugu badnayd muddo sanado ah. Dhaqaatiirta la tacaalaysa hooyadan ayaa horay u sheegay in ay aaladda iskaanka ku arkeen caruur 7 ah oo mantaano ah oo ku jira uurka hooyadan, balse markii la gaaray xilligii umusha ayaa waxaa caruurtii ay noqotay 9 taasoo 2 ay ku soo korortay. Dhaqaatiirtuna ay sheegeen inay hore aysan u arkin labadaasi caruurta. hooyadan oo lagu magacaabo Xalima Ciise ayaa dawladdu u soo dhoofisay magaalada Morocco dalkaasi Morocco si loola tacaalo haddii ay ku timaado xaalad caafimaad oo degdeg ah, isla markaana loola socon lahaa xaaladeeda caafimaad loona siin lahaa gargaarka ay u baahan tahay dhanka caafimaadka. Aabaha dhalay caruurtan ayaa warbaahinta u sheegay in hooyada iyo caruurtu ay bad qabaan, waxaana uu yiri waa Allah mahadi, waxaana uga mahad celinaynaa buu yiri dhaqaatiirtii iyo waliba kalkaaliyaashii la tacaalay xaaladihii umusha ama foosha. Caruurtan ayaa kala ah 5 gabdhood iyo 4 wiil, waxaana tani noqonaysa tiradii ugu badnayd muddo sanado ah, taas oo hal mar ku umusha hooyo oo markaasi geli doonta buugga loo yaqaano World Guinness Record oo noqonaya ama ah buugga lagu kaydiyo mucjisooyinka adduunka. 2 jeer oo hore ayay dhacday tiro intaan in la eg inay dhalato ama ay umusho hooyo, waxaana markii ugu horeysay ay dhashay hooyo ka soo jeeda dalkaasi Australia 1997 iyo 1999 oo markaasi umushay haweeney u dhalatay dalkaasi Malaysia 9 caruur ah, balse midkoodna ma uusan badbaadin oo ma uusan dhaafin isbuucyo. Tiradii ugu badnayd ee caruur mataano ah oo badbaada waxa dhashay haweeney lagu magacaabo Nadi Suleyma, taas oo dhashay 8 caruur oo mataano ah. 8dooduba waa ay bad qabaan, haddana waa 12 sano jir, waxayna ku jiraan buugga mucjisada adduunka lagu kaydiyo. Wasiirka caafimaadka ee dalka Maali Fanta Sibi ayaa u hambalyeeyay qoyskan, wuxuuna u rajeeyay in caruurtooda u badbaadaan una koraan, isagoona sheegay in ay la garab taagan yihiin ama la garab taagnaan doonaanba kaalmo walba ay u baahdaan, haddii noqon dhanka caafimaadka iyo dhanka xanaanaynta caruurtaba. qoyskan oo muslimiina ayaa Allah uga mahadnaqay caruurta uu ugu deeqay, ismarkaasina waxa ay sheegeen inaysan ahayn awoodooda ay ku kasbadeen, balse ay tahay xikmad Allah, iyagoo sheegay inay jiraan qoysas fara badan oo la tacaalaya sida ay ku heli lahaayeen caruur. Caruurtan ayaa markii ay dhasheen waxaa miisaankoodu ahaa 500 gram ilaa iyo 1 kilogram, waxayna taasi kaliftay in ay ku koraan ama la geliyo quraaradaha ama aaladaha lagu xanaaneeyo caruurta dhasha, iyagoo markay miisaankoodu yar yahay ama la dhasha xaalad caafimaad darro. Isku soo wada duubo arrintan ayaa walwalgelisay dhaqaatiirta wadamada bariga Afrika ay ku midaysan yihiin, iyagoo la walaacsan sidii ay ku badbaadin lahaayeen caruurtani, maadaama ay dhacdooyin kasii horeeyay ay jireen oo markaasi ku saabsan caruur tiro mataano ah, inta badan ay sheegeen inaysan badbaadin dhammaantood. waxaase hadda ay markaasi muuqata rajo ah inay badbaadi karaan, maadaama muddo ka badan 2 isbuuc ay ku jiraan aaladaha lagu xanaaneeyo caruurta, iyagoo markaasi u muuqda inay bad qabaan. sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa caalamka ku soo badanayay mucjisooyinka oo tusinaya jiritaanka awoodaha Alle, waxaana taasi ay kaliftay in ay dadyow fara badan oo horay aan u aaminsanayn diinta Islaamka ay ku soo biiraan kadib markii ay la kulmeen dhacdooyin iyo qisooyin fara badan oo tusinaya jiritaanka iyo waliba rabbinimada Allah subhanahu wa ta'ala.